waxaan qaban qaabadiyo qorshaha lagu jirnaa qabyaalad laga tagiyo qabiil wax ku qaybsashada وحبناها جودة كملجاركا دورشويك بونتلاند أول ما جابي تضبية طبنكي أغسطس الله بدي كوني سجاري طبنكي وسجار حبنا ذا لو صح حلي أغني هو يارنمو لبما المتكذب سجاري طبنكي أغسطس الله بدي كوني سجاري طبنكي أي جودة لجوداري حرونت مدحتوي ذا بونتلاند وجوجوكاها مدحوينها الدولة ذا بونتلاند دكتور سيد عبد الله الدني waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowra dalka iyo dadkiisa daacadnimo ugu adeego xilka la dhiibay daacadnimo ugu maantana Ilaahay hortiisa ku dhaarateen oo inaad mas'uuliyadaas qaadaan ama mas'uuliyadda dadkiina u qaadeen xukuumadda uma idin qaadin dad gaar uma idin qaadin waliba waa gud loogu talagalay inuu ka madax bannaanaado hay-adaha dawladda oo si dhab ah dadkan u gaarsiiyo maxaa yeelay waa wixii dadka ka dhaxeynaya baad maamulaysaa haddana 16 bishii November ayaa xubnaha guddiga waxaa si buuxda u ansixiyay baarlamaanka dawladda Puntland guddiga doorashooyinka ee Puntland inay xasaanad helaan yaa aqoon in sida ay xasaanad ku siiyaan mudanayaal konton xubno oo fadhiga dhammaantiisa fadhiyay wada ogol sida ay xaqiijiyeen waxgarad isku jira qaybaha bulshada guddiga waxaa la dhisay muddadii ku habboonayd iyadoo dawladdu ay talada hayso wax ka yar hal sano waxaana ujeeddadu ay ahayd in laga guuro nidaamka ku salaysan wax qaybsiga beeraha ee Puntland ay ku soo dhaqmaysay muddada ka badan 20 sano oo loo guuro hanaan suurtageliya qof iyo cod dhab ahaantii guddiga iyo hawluhu waxay ku bilowdeen waqti fiican si fiican bay ku bilowdeen markii la eego dhaqso magacaabida waxay kaloo maaragtaa si fiican u dardargeliyeen waxa kan la yiraahdo la xiriirka ay la xiriirayaan bulshada guddigu markiiba wuxuu guda galay hawlihiisii iyo diyaarinta qorshihiisii muddada dheeraa ee uu ku howlgeli lahaa 3 sano ee soo socda 26 September 2019 guddigu waxa uu bilaabay inuu xaruntiisa dhexe ee Garowe uu ku marti qaado labadii guddi ee hawsha kaga horeeyay iyo ururada bulshada culimada siyaasiyiinta golayaasha xukuumadda warbaahinta haweenka iyo dhalinyarada aad baan ugu faraxsanahay guddiga doorashooyinka sida lixaad kale oo qiimaha badan oo ay ummadooda ula shirayaan u wareysanayaan sida dimuqraadiyadda ah oo maanta aan dalal badan oo Afrikaan looga dhaqmin oo maanta ay gaarsiiyeen Puntland aakhirkii bishii December 2019 guddigu waxa uu ansixiyay qorshihii uu ku shaqeyn lahaa iyo tubtii doorashada dawladaha hoose ee Puntland loo qaban lahaa 15 December 2019 guddiga doorashooyinku waxa uu daahfuray qorshe hawleedkii uu ku shaqeyn lahaa ilaa iyo maalinta doorashadu ay ka dhacayso waxaana xafladii shaacinta ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland madaxweynaha ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka socday golayaasha dawladda guddiyadii hore ee doorashooyinka ee TBEC iyo TBEC 2 siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muhiimsan inaan guddigii waqti habboon aan magacaabnay inaan intii karaankeenna ku dadaalnay annagoo waxyaabo badan xeerinayna inuu guddigaas u muuqdo guddi shaqadaas ku filan in muddadii yareed ee hadda joogeen iyaguna dareemeen dadkuna ay dareemi karaan inaan madax bannaani buuxda oo sida sharciga dastuurku dhigayo aan siinay laakiin intaasba waxay tusaale u ahayd inay naga go'an tahay inay doorashadan dhacdo guddigu waxa uu bilaabay howlgal iyo qaabanqaabo waddadii loo mari lahaa doorasho qof iyo cod haddaba si ay u fuliyaan qorshahooda xubnaha guddiga doorashooyinku iyagoo wada jira ayay bishii January ee sanadkan 2020 waxa ay wada jir safarra ugu mareen 16 degmo oo ka mid ah 9 gobol ee Puntland ujeedadu waxay ahayd wacyigelin iyo daahfurka barnaamijkan oo heer gobol ah
iyo isbarashada guddiga iyo bulshada ku nool deegaanadii ay soo mareen. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. annaga wax noo keena waxaa sawdkii qof walba sawdkiisu la baxaya. dawladnimada lagu raadinaya dhisaashaa lagu dhisaya waxaa dawladdeennaan ku adkaysanaynaa wax noo keena maanta ka hor horta idinkaan ahayn maadhaan arag. macnaha doorashooyinka cidna kama soo qayb gelin jirin dumarka xaquuq kuma aysan heli jirin. maanta waxaan u malaynayaa deeftiin baa dilaacay waabaa beriyey oo way xaquuqdeennii baynu helaynaa haddaynu haweennahay oday iyo nabadoon iyo midna maanta ina duutiyi maayaan u malaynayaa waana waxaynu aad ugu faraxsannahay. runtii guddiga doorashooyinka waxay wadaan shaqo muhiim ah bulshada Puntland systemkan kusoo dhex jiray muddo dhowr 20 sano ah waxay aad ugu hamuun qabtaa inay hesho doorasho hal qof iyo hal cod. qofka bini aadamkaana waxa ugu muhiimsan ee raadiyaa waxa waaye in isagana la dooran karo isaguna wax dooran karo. safaradii aan ku marayno gobollada iyo degmooyinka Puntland oo dhan waxyaalaha ugu weyn oo aan ka soo faa'iidnay waxaa kow ka ah dadku sida ay ugu bisil yihiin una rabaan in laga guuro hanaankii hore oo wax qaybsiga beelaha ku salaysnaa. runtii waagi hore Puntland asaasayba aan loogu talagelin inuu sii socdo laakiin haddana dadka hadda aan moodin inuu soo karay oo dulmi badan laga tirsanayo oo tayada maaragtay hay'adaha dawladda iyo isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo meeshii allaale meeshii la aado oo adeeg bixintu ka sii mid tahay waxaad moodaa inuu caqabad ku yahay barnaamijkan oo aysan suurtagal ahayn in lagu sii socdaayo in dadku ay ka fili karayaan wax ka duwan wixii hore inuu uga soo baxo. marka waxaa is leeyahay waqtigii si kasta ha looga daahee dadku bisaylkooda maanta wuxuu joogaa inay ka go'an tahay in barnaamijkan ay qayb ka noqdaan. safarkii hore dad aanu fahansiinayna barnaamijkan ayaanu waxaan kula kulannay safarkii labaad oo aanu soo fiirin xafiisyada iyagii urura ku jira xafiisya jooga barnaamijkii qaybka ah mutadawiciin ah lacagtooda ku bixinaya iyo maaragtay kharashkooda yani kharashka ka qayb qaadanaya ururka socodsiintiisa. waxay muujinaysaa marka annagoo aan wacyigelin badan weli aan aad u samayn haddana dadku rabitaankooda iyo sida ay ugu daareen hanaankii hore oo wax qaybsiga beelaha iyo sida markan ay u rabaan inay qayb uga noqdaan hanaan uga salbalaaran u suurtagelinaya qof walba oo muwaadin inuu codkiisa dhiibto oo markaa ciddii marka isaga matalaysay ama iyada matalaysay ku taageero cod ku taageero beri kula xisaabtamo wixii marka ay ballan qaadeen ururkaasi ama xisbigaas uu ballan qaaday marka xisbiga loo gudbo haddii uu arko ama ay aragto inaysan qolyahan aysan qaban berita inuu kula xisaabtamo kale in codkiisa u diido. marka runtii bisaylkaasi waxay anagana noo sii noqotay dhiirigelin aad iyo aad u xoog badan. waxayna noo muujisay in markan meel loo laabta aysan jirin waxa keliya aan haysana ay tahay inaan horey u socno barnaamijkan fulino dadka reer Puntland marka ay hormuud ugu noqdaan Soomaali in doorasho qof iyo cod ah oo xalaal ah ay deegaanada ka dhacdo. sidoo kale 23 February 2020 guddigu waxa ay safar ku kala bixiyeen dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Kenya oo ay kulamo kula yeesheen hay'adaha caalamiga ah iyo xubno ka socday beesha caalamka oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi oo danaya hanaanka dimuqraadiyadda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. kulamadaas iyo guddiga doorashooyinka ee Puntland beesha caalamka wuxuu u bandhigay qorshaha ugu talagalay dimuqraadiyadda Puntland iyo sida ay gacan uga geysan karaan si doorasho qof iyo codihii ay Puntland uga hirgasho. guddigu isagoo hawshiisa fushanaya ayuu waxa uu dib u eegay xeerarkii horey u jiray ee ay sameeyeen guddiyadii ka horreeyay isagoo oo khubaro dhanka sharcigaana la kaashaday dhammaystirka xeerka ugu muhiimsan ee loo yaqaano xeerka codbixiyaha. taasina waxa ay ka dambeysay kadib markii uu la tashaday una bandhigay dhammaan ururada siyaasadda ururada bulshada iyo xukuumadda qaybaha kala duwan ee bulshada oo danaynayay siyaasadda iyo hanaanka doorashada ee Puntland ayaa dabeeto waxa ay samaysteen ururadaasina waxay bilaabeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen siyaasadda Puntland iyagoo buuxinaya shuruudaha iyo foomka diiwaangelinta ururada inta aanu dhammaan waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in ay isku soo diiwaangeliyaan. waqtigii loo asteeyey diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland inay ku eg tahay galabtay oo ay bishu tahay 15 bisha 3aad 2020 iyadoo uu guddigu qabtay 17 codsi oo ah ururo siyaasadeed oo loo soo gudbiyey.
haddaba intii u dhaxaysay bishii March ilaa iyo dhammaadkii bishii June waxaa hawlihii guddiga saameyn ku yeeshay cudurkan fayraska ee COVID-19 loo yaqaano ha yeeshee guddigu isagoo raacaya talooyinka iyo tilmaamaha mas'uuliyiinta caafimaadku ay bixiyaan waxa uu si taxadar leh u waday hawshiisii sida kulamadii ay la qaateen guddiga ka hortagga COVID ee Puntland iyo iyana ururada isdiiwaan geliyey shirarkaasi waxay ku dhaceen habka internetka ee Zoom-ka loo yaqaan guddiga doorashooyinku waxa uu mid uga guddoomay ururada siyaasadda ee soo dhammaystiray qaybo ka mida shuruudihii diiwaangelinta ee wejiga labaad oo wakhtigii loo qabtay uu ahaa 22 Julaay 2020 29 Juun 2020 guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinku waxa ay bilaabeen kormeer ay ku sameeyeen dhammaan xafiisyada ururada siyaasadda ee gobollada Puntland si loo hubiyo in ururadu ay leeyihiin xarumo leh astaamihii lagu xusay habraacii isdiiwaangelinta ururada siyaasadda ee Puntland xeerarkii maanta waa inoo jiraan halka xeer u dambeeyay hadda hor yaalla golayaasha dowladda wacyigelintii bulshada waa bilowday oo gobollada sagaalka ee Puntland dhowr jeer ku laalaabanay qaab kala duwan oo kastoo duruufaha kaloomuhu wax badan uu naga hor istaagay laakiin haddana wacyigelintii iyadoo toos ah iyadoo waxa weeye toos ahayn intaba waa bilownay tayayntii guddiga laamihiisa kala duwan laftigiisa agab ahaan iyo aqoon ahaan intaba waa bilownay annagoo dhawaan rajeeyana hadduu ilahay yidhahdo inaan xafiisyadii gobollada iyo degmooyinka aan furno tan ugu sii muhiimsan waxa weeye waa markii ugu horreysay oo ururo tiro iyo tayo intaa la eg ururo siyaasadeed ay Puntland ka dhismaan waxaasoo dhammi waxay aasaas iyo tiir u yihiin in barnaamijkan uu guulaysto uu hirgalo kalsooni badan waxaan ku qabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo in markan ay tahay markii aysan Puntland dib dambe ugu laaban doonin hanaankii hore wax qaybsiga hore loogu socon doono hadduu ilaahay idmo hanaankan cusub oo xisbiyada badan oo qof walba oo markaa muwaadina fursad u siinaya inuu qayb ka ahaado doorashada ciddii markaa isaga matalaysay berina uu kula xisaabtamo waxaan marka cid walba oo barnaamijkan u ah daneeye ka ah ama bulshada dhammaanteed waxaanu ka codsanaynaa inay kaalintooda ka qaataan guusha barnaamijkan waa guusha reer Puntland iyo guusha Soomaaliya oo dhan idinkiisa السلام عليكم walaal waxaan ka soo wacay xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland magacaaga iyo nambarkaaga waxaan noo soo gudbiyay urur siyaasadeedka Himilo waxaan doonayaa inaan hubiyo inaad ka mid tahay taageerayaashiisa waxay noqon doontaa tallaabada xigi doonta ee u qorshaysan guddiga doorashooyinka mar haddii uu xaqiijiyey mid ka mid ahaa shuruudihii laga doonayay ururada siyaasadda ee in la hubiyo taageerayaasha ay ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka Puntland haddaba haddii uu wejigii labaad guul ku soo dhammaaday bilaha soo socda guddiga doorashooyinku waxa uu bilaabayaa howlgelinta shaqaalaha iyo xafiisyada gobollada uu ku leeyahay waxaa bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaha iyo diyaarinta goobaha laga codayn doono waxaa kaloo la bilaabi doonaa oo la dardargelin doonaa ololaha wacyigelinta bulshada ee gobollada oo uu hakadgeliyey fayraska halista ah ee maanta dunida ku baahay ha ilaawin halku dhegeennii ahaa codkaagu waa xaqaaga iyo mustaqbalkaaga